Dubai waxay maraysaa xilli adag oo xaalado cimilo oo aad u daran. Dalka Imaaraadka Carabta waxaa aad u sareeya heerkulka oo gaaray 50 digrii, kaasi oo khatar gelinaya in ka badan 3 milyan oo qof oo ku nool magaaladaas. Dhawaan dalka Kanada in ka badan 500 oo qof ayaa u dhintay kuleyl aawadiis. Si looga fogaado waxyeelada noocan ah, Imaaraadka ayaa iyadoo loo sii maraya waaxda cimilada waxay la timid tiknoolajiyad yarayn karta heerkulkaas. Farsamadaasina waa soo saarista roob aan dabiici ahayn. waaxda cimilada ee dalkaasi ayaa barta internetka ay ku leeyihiin waxay toddobaadkan soo dhigeen muuqaal muujinaya roobka aan dabiiciga ahayn ee macmalka ah oo ka da'aya meelo badan, iyadoo dadku ay sii wataan noloshoodii caadiga ah. waxaana la arkayay gawaarida oo dhex maraya waddooyinka waaweyn oo biyo dhex fadhiyaan. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska ayaa loo diray daruuraha ee duleedka magaalada Dubai si ay u hirgeliyaan tiknoolajiyadda oo hadda la tijaabinayo. haddaba sidee tiknoolajiyadan u shaqaysaa? sida laga soo xigtay waaxda saadaasha hawada ee Imaaraadka, waxaa la soo saaray diyaarado drones kuwaas oo lagu rakibay awood koronto oo gaar ah. diyaaraduhu markay cirka u baxaan ee ay daruuraha gaaraan ayay sii daayaan maado. darmarka ka dhasha maadadaas ayaa daruuraha culays soo saara oo isku ururiya oo wax ka beddelo qaab dhismeedkeeda. isbeddelkaas ayaa waxaa ka dhashay inuu kordho cufka qoyaanka ah ee ku jira hawada iyo daruuraha oo noqda roob marka dambena dhulka ku soo da'a oo aan waxba ka duwanin sida roobka caadiga ah. markay dhibcahani isu yimaadaan oo weynaadaan way soo dhacaan. markay dhacaan waxay sameeyaan qoyaan dhulka ku soo daata sida roobka. mashruucan iyo mashaariicda kale ee roobka macmalka ah gaar ahaan xilliga kulaylaha wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan. haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah ma sahlan tahay in roob aan dabiici ahayn la sameeyo? cilmibaarayaashu waxay muujiyaan aragtiyo kala duwan oo ku saabsan nooca tiknoolajiyadda roobka, laakiin in badan waxay isku raacsan yihiin inay qaali tahay, qarash badanna u baahan tahay in la gaaro himilooyinka roobka lagu baadigoobayo. dowladda Imaaraadka Carabta waxay mudnaan siisay mashaariicda noocan oo kale ah, waxayna u qoondeysay dhaqaale lagu taageerayo hirgelintiisa. sanadkii 2017 dowladda Imaaraadku waxay 15 milyan ku kharash gareysay 9 mashruuc oo lagu taageerayo soo saarista roobka macmalka ah. saynisyahano ka tirsan jaamacadda Reading ayaa ka mid ah khubarada gacanta ku haya mid ka mid ah mashaariicdan. maadaama celcelis ahaan roobka Imaaraadka sanadkii ka da'a uu yahay 100 milimitir, ayaa dalkan wuxuu doonayaa inuu helo xaddi intaas ka badan.